بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي waxaa idin rajaynaa caafimaad bashbash barwaaqo meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada fiidiyoga cusub ee maanta idin wado. fiidiyogan maanta wuxuu quseeyaa habkii xukumanka loo badin lahaay mise active laga dhigi lahaay mise loo firfircooni lahaay. fiidiyogan wuxuu buuxinaa fiidiyogii wiigi hore ee maxaa la dhahay hormoonka kor usoo qaadayay kiisi labaad waay insha allah. waa ogtihiin qofka haduu xukumankiisa daciif ay inuu uu qaadeenin qofka haweenka ah mise hadii xukumanka active ay ahayn mise ay ku yar yihiin labadaba laba dhibo oo kala daran waaye. marka insha allah waxaa idin wadaa wax yar oo maasha allah aad u qurux badan oo gurigeena idin yaalo sida mindaabaad camal loo isticmaalayo. insha allah ujeedin horteeda waxaa yaalo sanjabiil oo aan soo shiiday mise aan soo hool balkan oo soo hool sanjabiil fresh ah maraba sanjabiilka budada ah kan oo kala u baahanay sanjabiilkan oo fresh ka insha allah iyo xulbo waatna ujeeda iidana iyo waxa kale u baahanahay malab dabiici ah malab oo asli ah malabka oo sokorta ah oo maxal dhahay ma loo baahna hadda heli karin waa iska dhaaf ka kaaftoomi kartaa laakiin waxa u baahanahay malab asli ah sanjabiilka waxa ka rabnaa qaadada yariiska oo shaah ah xulbadana saas oo kale waxa ka rabnaa iidan qaadada yar oo shaahiga ah. marka inta hadda la isku dardarin mis intii oo isku shubin waxa rabaa wax yar inaa idin faa'iideyn oo idin waani iska dheh insha allah. haddii oo labadaas dhib qabtid dhibkaas oo ah haddii xukumankaada yar yihiin oo meeshii laga rabo tirada ay ahayn iyo haddii oo active ay ahayn oo maxaa la dhahay meeshii laga rabo ay gaareen waxaa samaysaa marka ugu horeysa cuntadaada sax waxaa ka wada inaa cunto borotiin ah cuntid cunto nafaqo leh ah cuntid qaasatan cuntada waxaa ka wada qudaarta inaa badsatid sida maxaa la dhahay waxyaabaha oo cagaarka ah sida ansalaatada barbarooniga maxaa la dhihi jiray qajaarka bahalka kale maxaa la dhahaa avocado wax kasta oo cagaar wuxuu ka saacidaa in oo xukumankaada ay bataan maadaama raadinoosid maxay ahayd caruur mise ilmo. marka taasna waxay ahayd waano tan kale labaad waxaa ka dheeraata stresska wuxuu ku keenaa dhib badan. stresska maxaa la dhahay jirkaada inuu baabi'inaa nafaqooyinkii iyo borotiinkii waxa u baahneed meel kale uu ku baabi'inaa stresskan iska yaray. intaasna waana iga ahayd. waxaa kaloo aan idin sheegaa shaahigan shaah camal aan samaynayno qof dhiig kar qabto way cabi kartaa wax dhib lama u keenayo. qof oo maxaa la dhahay oo sokor qabto way cabi kartaa saas oo kale wax dhib oo u keenayo ma lahan. qof kasta oo maxaa la ilmi ay kasoo daaheen insha allah oo labadaas mid qabo wuu cabi karaa wax dhib u keenayo. xulbadan faa'iidadeeda meesha ma laga soo koobi karto ogtiin xulbada faa'iido badan ay leedahay qaasatan hormoonka ugu weyn ee wado hormoonka estrogenkan hormoonka oo haweenka oo jirkooda u baahan yahay waa laazim waa inuu lahaado. hadda hormoonkaas oo ka yar yahay mise oo daciif oo ka yahay xamilkaadii mise uurkaada dhib ayaa kaaga imaanaya mise uu ka soo daaha. insha allah ilaahay idinkiisa idinkan ilaahay waxaa ka barya qof kastoo ilmo raadinayo muslim inuu ilaahay awlaad saalix oo siiyo intii haysatan inuu ilaahay maxaa la dhahay oo awlaadooda baari aaga dhigo oo u dhaafo. marka hadda waxaa idin sheegaa waa isku daraa kadib waxaa idin sheegaa habkii loo isticmaali lahaay iyo waqtigii la cabi lahaay insha allah. waa kana waxaa isku darsanaa hal qaado yar oo sanjabiil ah intaa ku shubaa hal qaado yar oo saas oo kale oo xulbo ah saan iskugu daray xulbadii iyo sanjabiilkii. kadib waxaa rabaa hal galaas oo biyo karkaraayo ah ani biyaha caadi hadda yihiin waana cabiro hal bakeeriya ku cabiro mise galaas qofkasta u yaqaan waa kaas way kulul yihiin. waa ku shubaa bismillaah markaas saas ugu shubo waana u xiraa meela iska dhigaa. okay goormay sameynaa waxaa sameynaa subaxii alisay markaa soo kacid aa sameynay kadib shaqadaada iska aada iskoolkaada hadda maxaa la dhahay adi uun subaxii alisay inaad sameysaa waxaa kale danahaada kale iska raacsaan iskugu daree halka bakeeri waxaa u sameeyay halka bakeeri yaa rabnaa ka badan marabni markaas saa iskugu qaso. goormee la cabaa waxaa la cabaa habeenkii markaa aa cashaysid mise markaa seexartid adi oo dantaadi waxaad aa dhamaystid alaabtan aa qastay aa cabee. marka mana la rabo in la miiro haddii aa awoodid in oo maxaa la dhihi jiro oo sanjabiilka keligiisa iska bixiso sanjabiilka xoogaa guruf oo yeelana ani bahashaan aan ku sameeyey. haddii aa awoodid mid kale oo kasii yar ilaan wixii wax anaga oo nafaqo mise mindaabaad camal aan u isticmaalayno waaye saas bahashan mid ka yar hadda indha ka yar ahaysid waa ku xoqi kartaa. kadib waa qasanee saas marka iskugu qasid habeenkii soo qaboobay waa soo qaadee waa cabee. haddii aa awoodid in qalaata aa gelisid mise mashiinka waa geli kartaa laakiin waxaa wixii dhan cabtid xoogaa sanjabiilka inuu ku dhibo laga sanjabiilka wax yar iska bixi inta isku day inaa laqad horta xulbadan haddii biyo kulul lagu shubo
wayba maxaa la dhahay way jilcee wax caada u liqi kartid mise aw cabi kartid noqonaysa saas mu dhib badna marka saas oo qabo hadda malabka sheekadiisa kala marka hadda malab ma ku daray sababtoo biyaha way kulliin biyo kulul hadii malab lagu shubo faa'iidada way ka tagay hadhowda marka cabaay caawa aku darsana malabka waa kana faa'iidada malabka taas ay ahayd asna marka cabaysid aku darsana hadii malab aawaysid waxba ku daraysa sokorta ugu soo dhawaan bataatan sokor ku darsan sidiisa ku cabay mise malab oo fiican ku darsanay waxa kale oo ku sheega hadii oo maxaa la dhahay oo sokor waxyaabaha badan oo sokorta iyo waxyaabaha saliid badan iska dhaaf waxyaabaha hormoonka ka bahdilayaan caafimaadka jirkaada u fiicna waxa kale oo ku sheega inaad isku dayid inaad cuntada oo dabiiciga mise cuntada organiga wax la dhaho cuntooyinkaas aad iyo faa'iido badan ay leeyihiin ku saacidaan inuu ilaahay xamil degdeg oo ku siiyo taasna intaasna waana iga ahayd maxaa dhigi jira marka goormeel bilaawa way cabitaanka waxaa bilaabaysaa awal maxeedka oo kugu dhaco maalinta oo kugu dhaco isla maalinta koowaad isla maalinta bilaabe ilaa 6 maalmood ayaa cabaysaa 6 maalmood kadib waa joojina waa kusoo celinaa mar labaad cabitaanka waxaa bilaabay shaahigan marka waxeedka kugu dhaco isla maalinta koowaad subaxiyaa qase habeenka markaa seexanaysid waa cabaysaa malabkaas ku daree maxaa la dhihi jiray 6 maalmood kadib waa joojinay hadduu ilaahay bishaas gudaheed ilaahay xamil kugu siiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin haddii kale haddana bishii kale markii la gaaro waa kusoo noqonay sidoo kale waa sameynay mar al marka waxayd kugu dhaco cabitaankaana samaysanaysaa subaxi waa qasee habeenkina maxay ahaato waa cabaysaa asxaabteyda qaaliga waxaan u maleynaa inaan video aad u fahantiin waa kusoo celinaa mar kale qof oo maxay ahayd dhiig kar qabo wuu cabi karaa wax dhib lama u keenaayo qof sokor leh saasoo kale wuu cabi karaa wax dhibaato uu keenayso hormoonka ku saxee xulbada maasha Allah aad u fiican sanjibiilka faa'iidadiisa waa ogtihiin sanjibiilkan wuxuu aad ugu fiican waa wax kulul wax kas dhiigo furfuraa maxay xukumanka faxfax kaaga dhigaa إن شاء الله وحنا رجعنا إنه إذا عجب إلهي دوري صالحة إذن سي أصحابتي قالقة فيديو وين ما شاء الله ما أنت ماشي أيوكو أوكي سبسكرايب هلا يسار لايك أند شير ومهتسنتين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.